asalaamu calaykum ma rabtaa inaad bilaabdo ganacsi yar laakiin waxaad is leedahay lacag badan ma haysto xaggee ayaan ka bilaabaa runtu waxay tahay ganacsi badan oo guulaystay kuma bilaabaan lacag badan waxay ku bilaabmeen fikrad wanaagsan qorshe cad iyo tallaabo yar oo la qaaday maanta waxaan kuu sheegayaa 5 qodob oo muhiim ah oo kaa caawin kara inaad bilowdo ganacsi yar haddii aad rabto inaad barato fikrado iyo talooyin kaa caawinaya nolosha iyo mustaqbalkaaga ha ilaabin inaad channelka subscribe garayso oo videogan like saar aan bilowno kow dooro dhibaato aad xal u heli karto ganacsi wanaagsan wuxuu inta badan ka bilaabmaa dhibaato jirta ha isweydiin oo keliya maxaan iibin karaa balse isweydii maxay dadku u baahan yihiin tusaale ahaan haddii xaafadaada aysan jirin meel dadka si fudud uga heli karaan cunto dhar adeeg gaarsiin ama adeeg kale oo muhiim ah halkaas waxaa laga yaabaa inay ku jirto fursad ganacsi marka hore dadka dhegayso ogow wax ay rabaan waxa ay ka cabanayaan iyo wax ay hadda lacag ku bixiyaan ganacsigu wuxuu noqdaa mid qiimo leh marka uu dadka dhibaato ka xalliyo 2 ku bilow wax yar ha sugin lacag badan dad badan waxay yidhaahdaan markaan lacag badan helo ayaan ganacsi bilaabayaa laakiin mararka qaar fikirkaas ayaa kaa dhigi karaa inaad sannado badan sugto haddii aad haysato lacag yar ku bilow wax yar tusaale ahaan halkii aad dukaan weyn furi lahayd waxaad marka hore ka bilaabi kartaa online guriga ama adigoo adeeg yar dadka siinaya ujeeddadu ma aha inaad maalinta koowaad ganacsi weyn yeelato ujeeddadu waa inaad hesho macaamiishaadii ugu horeysa kadibna si tartiib ah u kobciso bilow yar laakiin bilow 3 baro suuqa ka hor intaadan lacag badan gelin ka hor intaadan lacag badan ku maalgelin ganacsigaaga sameey baaritaan yaa noqonaya macaamiishaada imise ayay diyaar u yihiin inay bixiyaan yaa kula tartamaya maxaad adigu kaga duwanaan kartaa tusaale ahaan haddii aad rabto inaad iibiso dhar ha iibsan boqolaal dhar adigoon hubin in dadku rabaan marka hore isku day tiro yar haddii ay iibmaan waxaad ogaanaysaa in fikradaadu leedahay fursad marka ha ku bixin lacag badan wax aadan weli tijaabin 4 lacagta ganacsiga iyo lacagtaada gaarka ah kala saar tani waa qalad ay ganacsato badan sameeyaan waxay lacagta ganacsiga u isticmaalaan kharashaadkooda gaarka ah kadibna ma garanayaan in ganacsigu faa'iido sameynayo iyo in kale markaad ganacsi bilowdo isku day inaad si cad u qorto imisa lacag ayaa soo gashay imisa ayaa ka baxday imisa ayaa alaab lagu iibsaday iyo ugu dambeyn imisa ayaa dhab ahaan faa'iido ku ah xitaa haddii ganacsigaagu yar yahay baro inaad lacagtiisa si nidaamsan u maamusho ganacsi aan la xisaabin way adag tahay in la ogaado inuu korayo iyo in kale 5 dulqaad yeelo oo si joogto ah u hormari ha filan in ganacsigaagu maalmo yar gudahood kuu keeni lacag badan bilowga waxaa laga yaabaa inaad khaladaad samayso waxaa laga yaabaa in alaab aysan iibmin waxaa laga yaabaa in macaamil yar kuu yimaadaan laakiin khaladka ha u arkin dhammaad isweydii maxaan ka bartay maxaan bedeli karaa maxaan
si ka fiican u samayn karaa. Dhegayso macaamiishaada, hagaaji adeegaaga oo si tartiib ah u kobci. Ganacsi yar oo si joogto ah loo hormariyo wuxuu noqon karaa ganacsi weyn mustaqbalka. Marka aan soo koobno shanta qodob: koowaad, raadi dhibaato aad xal u heli karto. Labaad, ku bilow wax yar, hana sugin inaad lacag badan hesho. Saddexaad, baro suuqa oo tijaabi fikradaada ka hor intaadan lacag badan gelin. Afar, kala saar lacagta ganacsiga iyo lacagtaada gaarka ah. Shan, dulqaad yeelo, wax ka baro khaladaadka oo si joogto ah u hormari. Xasuuso, ganacsi weyn wuxuu mararka qaar ka bilaabmaa tilaabo aad u yar. Haddii aad hadda hayso fikrad ganacsi ah, ha ku ekaan inaad ka fikirto oo keliya. Ee qor, baar, tijaabi, kadibna qaado tilaabada ugu horeysa. Haddii aad ka heshay videogan, like saar, channelkana subscribe garay si aadan u seegin video kale oo aan ku samayn doono ganacsiga, lacagta, cilmi nafsiga iyo horumarinta nolosha. Kommentiga hoostiisa nagu sheeg ganacsiga noocee ayaad jeclaan lahayd inaad bilowdo. Ilaa videogan xiga, nabadgelyo.